musabixi ma tabti noo haysta oo saa u soo taagay ma muusan taagu hayna adiga wariyaha kuwii la baaxsan jiray baa markaan ku yeedhano makhraati adiga ka waana waxa inay dhihi doonaan ciyaal yaryar baa muddo hoosteeda tagay oo maanta hadlay waxaan taa uga dan leeyahay waxaan ku dirayaa Somaliland ama nimankii isaaqee la sacano joogay waxa saaray waa aniga iyo lodkayga waa qayrkay waa kuwa halka fadhiya waa kuwa u dhaawacmay waa kuwa u dhintay godadka ugu jira koobaad ilaahay ama hadda iskale marka labaad waxaan u mahadcelinayaa bulshaweynta degmada oo halkan iskugu timi haday tahay dhalinyaradii haday tahay nin garboodkii haday tahay odayaashii horta shirkani maanta wuxuu daaran yahay in ay magaaladu hesho wax la yahay isbedel doon oo qodobo badan halkan inoogu qoran yihiin qodobadana waanu xusanaa qodobadani waxay ka kooban yihiin 5 qodob horta lambarkow horta waxa qurux badan shirku inuu yeesho buddhig iyo wax la garto 5 qodob ee halka ku qoran baa bartanka yeeynaya insha Allah waxaan rajeynayaa cid walba ay khusayso qodobada lambarkow ah kamid ahaato maamulka waqooyi bari uu garwadeen ka yahay madaxweyne Cabdiqaadir Fudhaw Caliye iyo xukuumaddiisa iyo wasiirka arrimaha gudaha cid ay khusayso inay si deyn ugu soo jawaabaan warajeenaya number 1 in ay magaaladu hesho isbedel doon oo isbedel doonkaas numberkow wuxuu noqonayaa horta magaalada maamul bay leedahay marka taa laga yimaado maamulkaas magaalada wuxuu haystay muddo ku dhow 30 sano haday sakaba badnaa cadadan waxay gaadhaaba 35 sano maamulkaasi magaalada haba yaraatay wax qabad ah ama wax horumar ah ama horumar muqdo la taaban karay haba yaraatay wixii soo kordhiyay ma jirto hadeer meeshan aanu fadhinaa waa togi biyuhu marayeen oo halbowlihii waa aragtaan waxa hareerihiisa saawdaasan waa qash waan jeclaa saxaafina saa kaamira igu qabata hareeraha toga waxa saa u yaala waa aragtaan waa qashin weeye saddexdan axad meesha la soo yubay wiilka yar bilayska meesha ka shaqeeya anagu ha furmay noqof waysiimay wuxuba wiilka yar bilays wax ka shaqeeya jira anna ka taxaya dadka agaad wata daafadaha dhuranaysa waxa la wax jira ma jira qashinkii waka wax jira ma jiraan lacagtiina la ka qaaday ee mid meherada iyo mid guri iyo mid walba aniga taagan baa la iga qaaday waa la xul ma dad baan u shaqeyn ma ciyaalkayga intaan ka shaqeyn ciyaal kale ku korinaa haddii askarta siiyaan haddii bilayska shaqeynaya siiyaan haddii kuwa dhaawac siiyaan waxba waxtar bay noo ahaan lahayd haddii dhakhtarka la geliyo haddii qashinka lagu guro meel marti ma jirto marka intaan kuwa ka soo qadna kuwa kale ku korinaa kuntaan ka sheegaynaa nala ka bedelo waxan tan shaqada ku dirmay anigoo shaqeynaya ayaa la magacaabo oo qashinka guraya qashinkiina isoo ka socon waayay lacagtii ay dadka ka gureen ee ahayd magarasa cashuurta waxa jirta 2 cashuurood oo kala gaar weeye mid waa gaadiidka oo checkpoint-ka halkaas inaga shisheeyay ayaa lagu qaadaa oo bishii $10 cashuurta kalena waa mid maalin la abay ahayd oo 4 bilood baa laga gurayay min $1 aniga dukaankayga ayaa 4 bilood laga gurayay markaas u geeyay $120 $140 waa dukaankayga kaliya islaantayda kaliya $140 bilood magaalada dhanna de waa laga gurayay oo de shaaraca koowaad iyo say isugu soo jeeda waa laga wada guray lacagtaas hadii la xisaabiyo de waa lacag fara badan bay noqonaysaa ana haw lacagtaas de in wax loogu qabtay ahayd oo dadka wax loogu qabto maanta halkii aan filaynay wax qabad in aad hadeer oo dhalinyaro ay yihiin oo islaamiin laga maqayn islaamiin maanta waxa lagu jeediyay markii la arkay inaanu saxaafadu yeelanay oo horta dhaliishuna waxba ku hagaagay wax kuma xumaadaan anagu caayana mayno waa mas'uuliyiin waa dad mas'uuliyiin ah oo deegaanka u dhashay caayay mayno laakiin soo dhaliilayna waxba ma ay qaban mar horena waxba qaban hadeerna waxba qaban hadeer saaka markaan ilaa xalays abaabulay aanu war saxaafadaan u yeeranana waa markii ugu horeysay muddo 30 sano oo saxaafad ay war ka hadasho waa markii ugu horeysay ninka ay ugu beeninaya waa markii ugu horeysay ka hadalno markii aanu isu nimi ee aanu saxaafadda soo hadal qaadnayna waxa la jeediyay habrihii waxa lagu jeediyay waxa la buskud dhiig hay'ad keenay jirto MCH-ka isbitaalka na waa lagu jeediyay waxa la yiri ka dhamaanine say iyagu keeneen yiri ka dhamaanine saasan bilaa islaam ku noqonay saaka
oo islaamiyiin lagaga maqan yihiin hanuun hay'ad keeni jirtay oo faradarkii ana waa lagu jeediyay waxa la yiri waa boqolkii shii ka dhamaan saasa horta bilaa hooyooyin ku noqonay laakiin se hooyooyinku guryahooda hadda lagu tagi doonaa dhaliisha iyaguba way jeedinayaan oo og yihiin in magaalada wax wali ka socdaan oo aanu maamul ka jirin cidna caaymayno cidna waxba ka sheegi mayno laakiinse waxaanu fariintayadan u gudbinaynaa madaxweynaha maamul goboleedka waqooyi bari Mr. Cabdulqaadir waa magaaladaadii inkastoo uu waqooyi bari oo dhan madaxweyne u yahay laakiinse tani waa bidigiisii waa tiisi gaarka ahayd inay maanta saa u ekaatay isaga ceeb ku tahay isaga ayay ceeb ku tahay waa in uu si degdeg ah wax uga qabtaa wixii hore ee aanu ka qaylinay uu nagu soo celiyay kuwii hore noo haystay aanu cidna caayi maayo cidna waxba ka sheegi maayo marka tiiba aniga lagu dhaliyay kudaafada waad ku qaban doontaa iyo dhulka waxyaabaha dhaliisheeda ah marka wax la dhaliilana wax hagaagaan iyo ceeb u arkin iyo in wax laga sheegayo la caayayo marka maamul mucaarad yeesho ayaa wax hagaagaan meel aan mucaarad balahayn hadda iyagu waxay u ekeyd 40 sano inaanay mucaarad balahayn oo ay nimanku iska haysteen jirin tii hore Soomaaliland wax qabad magaalada ma yeelan tahadeerna maamulka dadku deegaanka waxay yeesheen maamul iyagu ay leeyihiin oo madax bannaan yihiin oo fikirkooda iyo dhiigooda dhacaankooda ku yimi kii isbedelka ku keensadeen wax isbedel oo maamulkaas magaalada u sameeyay ma jirto intii hore magaalada hagardaamaysay dib u dhac u keentay ku haysay maamul xumada baa dib loo cusboonaysiiyay waxaan ka codsanaynaa dawladda maamulka waqooyi bari ugu horeeya madaxweyne Cabdulqaadir Axmed Cali Firdhiye xukuumaddiisa golaha wasiiro iyo mid xildhibaano iyo mid deegaanba waxaan ka codsanaynaa in magaalada il gaar lagu eego la soo booqdo baahida bulshadu qabto laga warhayo maadaama dadka iyagu ay xilka u hayaan u dhaarteen bulshadii